Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada janalka maanta. Haweeney markii ay furtay geerish awgeed uu lahaa, waxay ku aragtay waxyaabo aad uga yaabiyey. Haweeneyda markii ay furaysay geerishka, waxa ay filaysay inay arki doonto cayayaan yaryar iyo waxyaabo aan loo baahnayn oo qashin ah. Sababtoo ah waxa uu xirnaa geerishka muddo ka badan 20 sano, wax nadiifin ahna laguma samaynin. Laakiin markii ay furtay waxa ay ku aragtay wax aysan filayn. Haweeneyda ay qisadan ku saabsan tahay waa gabar ka soo jeeda Mareykanka. Waqtiyadii dambe sawirada ay baraha bulshada soo dhigaysay ayaa aad kaga yaabiyey. Arrintu waxa ay ka bilaabatay markii ay iyadii ka dalabtay in ay soo nadiifiso geerishka awgeed, kaas oo markaa ku sugnaa xaalad xun sababtoo ah muddo ayuu xirnaa. Awgeed waxa uu dhintay muddo ka hor. Kadib waxaa la helay waraaqo sheegaya in uu leeyahay geerish, wuxuuna u muuqdaa in la gaaray waqtigii laga soo saari lahaa waxa ku dhex jira. Sidaana ay uga dalabtay iyada gabadha in ay furto geerishka soona saarto waxa ku dhex jira. Markii ay furtay gabadhii, waxa ay ku dhex aragtay wax qaali ah oo lagu dhex hilmaamay, mana jirin cid sheegta in ay haysato waxaas oo kale. Waxa ay aragtay wax weyn oo daboolan. Marka kor laga fiiriyo, u muuqda gaari. Markii marada laga qaadayna, waxa ay aragtay in uusan ahayn gaari oo kaliya, laakiin yahay gaariga Lamborghini, modelkeeduna yahay 1982. Waxaana laga sameeyay modelkan tiro kooban oo gawaari ah. Waana gaari qaali ah, xilli horena la sameeyay. Mid u egna waxa ay ka soo ag muuqatay Leonardo DiCaprio, filimka lagu magacaabo Wolf of Wall Street. Gaariga kaliya ma ahayn midka geerishka ku jiray, sidoo kalena waxa yaalay gaariga Ferrari. Mid nuuceedan waxa ay ka soo muuqatay musalsal Mareykan ah oo lagu magacaabo Magnum. Gawaaridan waxaa qariyay boor badan, laakiin waxa ay ku sugnaayeen xaalad wanaagsan. Markii la nadiifiyana waxaa soo baxay quruxdoodii. Helitaanka ay heleen gawaaridan waxay agtooda ka ahayd qiimo weyn, waxaana lagu qiimeeyay labadooda lacag u dhaxaysa 400 ilaa 500 kun oo dollarka Mareykanka ah. Sidoo kalena waxaa geerishka laga helay gaari ka mid ah gawaaridii hore oo u laabanaya sodomeeyadii. Ayada gabadha waa ay xasuusatay gawaaridan oo ay hilmaantay, waxayna sheegtay in ninkeeda u soo gatay howlo ganacsi awgood. Laakiin waxaa ku dhacay burbur ganacsigiisii. Geerishkan ayuuna ku dhex kaydiyay gawaarida. Gabadha baraha bulshada ayay soo dhigtay sawirada gawaarida. Awowga uma uusan maleynayn in carruurtiisa uu uga tegay maal fara badan. Hadda gabadha waxaa soo gaara dalabyo in laga iibsado gawaarida, laakiin waa ay diidaa, waxayna ku raadinaysaa lacag ka badan inta hadda loo joogo. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay janalka maanta, subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Maxamed Nabiil waa inoo muuqaal kale. Mahadsanidin.